maanta waxaan ka hadlaynaa 10 shay oo laga yaabo inaadan ka ogeyn Ryan Cherky laga bilaabo koritaankiisii hore iyo cadaadiskii ku xigay ilaa macallimiinta caqabadaha ku noqday dhaawacyadii ku qasbay inuu bislaado iyo waxyaabaha noloshiisa ka baxsan kubadda ee sameeyay ciyaaryahanka uu maanta yahay innakeen aynu bilowna muuqaalkeena maanta numberka 10 koritaankii kubadeed tan iyo maalintii koobaad koorinta uusan caan noqon Ryan Cherky waxa loo arkayay ciyaaryahan ka duwan si inaba aan caadi ahayn lama gelin tijaabo weyn amba tartan lagu soo bandhigo tababarayaashu markii ugu horeysay waxay arkeen isagoo 6 jir ah oo dhinaca garoonka ka jooga ciyaarta walaalkiis isagoo si fudud kubadda ugu ciyaaraya dhagidhagi sameynaya waxyaabo u muuqda kuwa aan caadi ahayn marka loo eego carruurta daadiisa daqiiqadahaas waxay ku dhigtay maskaxdooda tababarayaal maxalli ayaana bilaabay inay isha ku hayaan isaga hal sano gudaheed kooxda Olympic Lions ayaa si degdeg ugu qaadatay akaademiyadooda markii uu 7 jir ahaa Cherky wuxuu horeba ugu jiray deegaanka tababarka xirfadeed sababtuna ma ahayn xoog jireed amba xawaare balse waxay ahayd fahamka dabiiciga ee kubadda tababarayaashii hore waxay sheegeen inuusan u baahnayn tilmaamo si uu wax u tijaabiyo si dabiici ah ayuu samayn jiray numberka 9 wuxuu ku dhawaaday inuu fadhiistay isagoo 13 jir ah horumarkiisu wuxuu ku dhawaaday inuu burburo sabab la xiriira xanuun culus oo kaga dhacay dhanka jilbaha intii uu yaraa qiyaastii 13 jirkiisii Ryan Cherky waxa laga daweynaya xanuun jilbaha ku dhaca kaasoo loo yaqaan osteochondritis oo ah dhibaato saamaysa lafaha iyo caloosha jilibka ciyaaryahan yar oo ciyaartiisu ku dhisneyd dhaqaaq degdega leexashooyin fiiqan iyo xirfad tan waxay ahayd caqabad cabsi leh waqtigaas looma ogolay inuu saacad u tababarto halka ciyaartoyda kalena ay ciyaarayeen oo horumarayeen Cherky waxa lagu qasbay soo kabsasho iyo dib u habeyn la xakameeyay kooxda Lyon aad bay uga taxadireen isaga iyagoo yareeyay culayska tababarka oo si dhow ula socday koritaankiisa iyo xaaladiisa laakiin waqtiga ayaa si qarsoodi ah u bedelay tababarayaasha akaademiyada Lyon ayaa mar dambe sheegay sharaxayna intani ay ahayd markii uu Cherky bilaabay inuu fahmay jirkiisa wuxuu noqday mid aad uga foojigan tababarka diiradda saaraya farsamada halkii uu xoog ka isticmaali lahaa isla markaana maskaxaan dulqaad badan yeeshay tani waa mid ka mid ah sababaha Lyon ay si adag ugu hilaalisay iyagoo ka fogeeyay warbaahinta iyo filashooyinka degdega numberka 8 rigooradu jabinayay markii Ryan Cherky ugu dambeyn uu galay kooxda koobaad ee Olympic Lions ma ahayn mid caadi ah waxay ahayd taariikh 17 jirkiisa ayuu u saftay kulankii koobaad ee kooxda Lyon wax yar kadib wuxuu noqday gooldhaliyaha ugu da'da yar ee kooxda Lyon kadibna wuxuu noqday mid ka mid ah ciyaartoyda ugu da'da yar ee ka ciyaaray UEFA Champions League iyo ugu dambeyn gooldhaliyaha ugu da'da yar ee taariikhda UEFA Youth League warqadahan wax walba waxay u muuqdeen kuwa quman laakiin gadaal waxa ka jiray dhibaato sababtoo ah Cherky si toos ah ayuu ugu booday rigoorada wararka iyo filashooyinka ciyaar kasta waxa loo arkayay imtixaan ciyaar kasta oo aamusan waxa loo arkayay walaac ma jirin meel uu ku noqdo kan ugu fiican marka loo eego da'diisa waxa laga rabay inuu si degdeg go'aan ugu noqdo tababarayaasha Lyon ayaana qiray in dareenka iyo cadaadisku ka hor yimaadeen horumarkiisa maskaxeed numberka 7 kooxdii uu ku riyoon jiray ka hor buuq iyo doodaha amba xitaa Premier League qudhiisa Cherky saacad ayuu sheegay hal shay Real Madrid waa riyadiisa intii uu Lyon joogay wuxuu wareysiyo ku sheegay in Real Madrid ay tahay meesha uu doonayo inuu ka ciyaaro sababtu ma ahan oo kaliya qurux balse waxay ahayd in Real Madrid ay matasho kubadda cagta weynaanta cadaadiska iyo taariikhda wuxuu ka hadlay inuu daawan jiray habeenada Champions League oo uu jeclaa fikradda ah inuu ku guuleysto halka filashooyinku aadka u sareeyaan Real Madrid waxa xiiso leh waa sida ugu ahaa mid daacada Real Madrid gaar ahaan isagoo daayara ciyaartoy badan way ka leexdaan su'aalahan oo kale marka la weydiiyo laakiin Ryan Cherky ma uusan ka leexan wuxuu xitaa xusay inuu doonayo inuu ku guuleysto abaalmarinta Ballon d'Or numberka 6 gawaaridiisa marka uusan difaaciyaasha ku dhibeen garoonka isagoo ciyaaraya Man City Ryan Cherky waxa inta badan lagu arkaa isagoo ku imaanaya xirada tababarka isagoo wata qaar ka mid ah gawaarida ugu soo jiidashada badan gudaha Premier League gaadhiga ugu qiimaha badan ee uu hadda leeyahay waa Ferrari caswa aad u qurux badan qiimihiisuna yahay qiyaastii $450,000 Mareykanka koorinta uusan wareegin Manchester City gaadhigiisa maalinlaha ahaa wuxuu ahaa Lamborghini Urus oo ah gaadhi aad u awood sare kaasoo si fiican ugu habboon tamartiisa garoonka dhexdiisa
tan iyo markii uu ku biiray Premier League wuxuu sidoo kale doortay gaadhi ay jecel yihiin ciyaartooy badan Mercedes G-Wagon waxaana marar badan lagu arkaa isagoo ku imaanaya Itixaad Campus isaga iyo saaxiibadii sida Jeremy Doku maalmaha uu doonayay inuu ku tago garoonka xawaare xad dhaaf wuxuu doortaa mid raaxiyo xawaare leh waana Bentley Bentayga taasoo ku kordhisay ururintiisa baabuur u saaxiiba raaxiyo xarago misana Ingiriisa kaasoo heer sare ah laga bilaabo Ferrari xoog badan ilaa gaari iska caadi oo qurux badan gawaarida Cherokee waxay muujinayaan inuu leeyahay isla heerka xirfadda iyo kala duwanaanshaha baabuur wadista sida uu kubadda ugu muujiyo garoonka dhexdeeda numberka 5 jacaylkiisa feedhka Ryan Cherokee ma ahan oo kaliya saxroolo kubadda cagta gudaheeda sidoo kale waa feedhyahan awood badan leh marka la joogo saaxadda feedhka waxa uu yahay meel uu ku dajiyo maskaxdiisa isla markaana uu ku kordhiyo diirad saaridda ka hor inta uusan garoonka gelin tan iyo markii uu ku biiray Manchester City tababarkiisa cross counter boxing gym wuxuu noqday hub qarsoon oo ka caawiya waxqabadkiisa tababarayaashiisa hore waxay xuseen inuu leeyahay feedh aad u xoog badan isla markaana dheeli tiran xawaaraha iyo dhaqaaqa uu halkaas ka bartayna ay ka dhigeen gambisidiisa kuwa aad u khatar badan maalinta ciyaarta numberka 4 wuxuu u ciyaaraa si uu farxad geliyo bulshada balse ma ahan inuu badiyo asaaska ciyaartiisu waa fikrad fudud kubadda cagta waa in lagu raaxaysto ma ahan oo kaliya ciyaaryahanka balse sidoo kale xitaa dadka daawanaya Cherokee waraysi uu bixiyay waxa uu ku sheegay inuu doonay inuu dadka ku farxad geliyo garoonka taasina waxay sharaxaysaa gambisidiisa meelaha cidhiidhiga baasaska qarsoon iyo inuusan marnaba dooran ciyaar ammaan ah haddii halis yar uu ku abuuri karo wax gaara numberka 3 naanistiisa Ryan Cherokee marka uu soo galo garoonka waxa loo bixiyay magacyo badan marka la joogo xulkiisa Faransiiska waxa uu bixiyeen Crazy Juggler sababtuna waxay ahayd kubadda hawada ku ciyaaraya waliba si degan halka taageerayaasha Man City ay u bixiyeen magaca Magician amba Sixroole iyo Cherkinho sababtuna waa xirfadiisa heerka sare xataa haliyeyga Thierry Henry ayaa qiray inuusan weligiis arag ciyaaryahan labada lugood sidaas ugu dhaqaaqi kara xawaare iyo xakameyn isku hal mar ah sidaana u gambin kara numberka 2 haliyeygiisa hal shay ayaa xaqiiqa Ryan Cherokee weligii kama uusan xishoon inuu sheego cid uu ku daydo halka ciyaartooy badan ay ka gaabsadaan amba ay si saacad u sheegin Cherokee mar walba si toos ay u muujiyaa qofka uu haliyeygiisu yahay doorashadiisuna waa Cristiano Ronaldo inkastoo ciyaartooy badan ay u janjeeraan dhanka Lionel Messi waraysiyada Cherokee mar walba waxa uu doortaa Ronaldo ma ahan sababtu goolasho oo kaliya balse sababtu waa maskaxdiisa adag shaqadiisa joogtada iyo sidoo isu bedelo oo si joogta u horumariya ciyaartiisa wuxuu sheegay inuu ka yaabo sida CR7 uusan ugu tiirsaneyn hibadiisa kaliya wuxuu shaqeeyaa si adag kana fikiraa siduu sare ugu kici lahaa mar walba halka adduunku u qireen inuu yahay kan ugu fiican adduunka numberka 1 ciyaarta uu ugu jecel yahay si ka duwan qaar ka mid ah ciyaartooyda da'da yar leh ee sida xad dhaafka u daawada dibna u eega ciyaaraha Ryan Cherokee wuxuu qirtay inuusan weligiis waqtigiisa faraaqada oo dhan ku bixin barashada kubadda cagta halkii uu sidaas sameyn lahaana wuxuu ku raaxaystaa ciyaarta EA Sport FC marka uu nasanayo isagoo inta badan doorta ciyaartooy weerar ah isla markaana tijaabiye skilliskooda iyo gambisyadooda si la mid ah qaabka dhabta ee ku sameeya garoonka saaxiibadiis ayaa kula kaftama in go'aamadiisa ciyaarta ay si buuxda ugu egyihiin sida uu garoonka ugu ciyaaro halis badan hal abuur leh oo aan la saadaalin karin Cherokee wuxuu sheegay inuu u baahan yahay waqtiyo ay markale kubadda u noqoto madadaalo ee aysan kaliya u noqon shaqo EAFC Sport ciyaar caadiya iyo ka fogaanshaha falaqaynta joogtada waxay ka caawiyeen inuu maskax ahaan dib isu dejiyo gaar ahaan marka uu la kulmo ciyaar adag amba dhaleecayn badan taas ayayna ku soo koobaynaa 10kii shay ee laga yaabo inaadan ka ogeyn Ryan Cherokee ma ahan oo kaliya goolasha iyo muuqaalada feeralka balse sheekadiisa dhabta hibadiisa ayaa ka dambaysa haddaba daawada su'aal ma u malaynaysaa inuu gaari karo heerkii Eden Hazard fikirkaaga noogu sheeg qaybta kommentiga hoose waxaan soo gaarnay dhammaadkii muuqaalkeena haylownaad ku soo birta kanaalka oo aad subscribe intaynu ku kulmayno muuqaalkan muuqaal la mid ah sidaas iyo maca salaama fi amaanillah